Turkiga ayaa arrimo cajiib ah waxa uu ku dhex arkay shidaalka iyo kheyraadka Soomaaliya isagoona sheegay in qiyaastii wixii la saadaalinayay ka badan laga helay kheyraadka dabiiciga ah ee badda Soomaaliya ku jira. Mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda batroolka Turkiga waxay sheegeen in xitaa waqtigii loogu talagalay in shidaalkaasi lagu soo saaro ka hor la soo gabagabayn doono shaqadaasi, iyadoona ujeedka iyo qorshaha uu yahay qaabka Ankara ay xilligan Soomaalida uga faa'iideyn karto kheyraadkooda dabiiciga. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka Turkiga waxa uu dhankiisa sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu ay ka wada hadleen arrimaha soo kordhay oo ah in kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya faa'iidooyin fara badan markan lagu dhex arkay, taas oo suuragelinaysa in haddii arrintan la sii baaro kheyraadka kale ee dabiiciga ee dhanka Soomaaliya faa'iidooyin fara badan arrintaas ay ka dhalan karaan. Ilo muhiim ah ayaa warbaahinta Xuraansi waxay u sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ay waday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo arrintaasi la xiriira, iyadoona Turkiga oo qorshahan hoos u dhigay in warbaahinta bannaanka loo soo dhigo sababo la xiriira cadowga Soomaaliya oo badan ayaa ugu dambeyn Ankara waxay sheegtay ama ay faafisay nuqullo ka mid ah waxyaabihii shidaalka kheyraadkooda dabiiciga ay ku aragtay. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalin ka hor wareysi uu bixiyay waxa uu ku qiray in Soomaaliya xilligan ay heshay fursado waaweyn oo la xiriira maalgashiga dalal fara badan oo caalamka, kuwaas oo doonaya in ay maalgashi ku sameystaan kheyraadka iyo macaadinta kale ee dabiiciga ee ku jira dhanka Soomaaliya. Madaxweyne Xasan waxa uu tilmaamay in araaji fara badan dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo gaareen hay'ado iyo shirkado kala duwan oo caalami ah, kuwaas oo dowladdu ay ku mashquulsan tahay kala xulashadooda iyadoo kaashanaysa dhanka iyo Turkiga oo ah waddan aqoon dheeraad u leh marka la eego kheyraadka dabiiciga ee dhanka badda, maadaama xukuumadda Ankara ay ka mid tahay dalalka ka faa'iiday soo saarka waxyaabaha dabiiciga ee baddooda iyo barigooda ku dhex jira. U tallaabista macaadinta kale ee uranium-ta ee laga sameyn karo hubabka waaweyn sida nuclear-ka, qalabka militariga iyo waxyaabaha kale ayay dowladaha Soomaaliya iyo Turkigu u gudbi doonaan intaanay dhammaan 2026 sida ay ku warameen mas'uuliyiin iyo xubno kala duwan oo labada dhinac ah. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya waxa uu dhankiisa sheegay in macaadinta faraha badan ee laga helay badda Soomaaliya ay yihiin kuwo faa'iido badan u leh marka la eego dhaqaalaha Soomaaliya ka soo geli doona. Waxa uu tilmaamay sarkaalkaasi in dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga iskaashigooda iyo cilaaqaadkooda saaxiibtinimo ee daacadnimada ku dheehan tahay in lagu gaaray dadaalada kala duwan ee hadda socda. Sahankii la sameeyay 2024, baaristii la sii adkeeyay 2025 iyo qodista 2026 waxay sahan u noqon karaan suuqgeynta 2027 haddii alla nabad nagu gaarsiiyo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in la joogo waqtigii Soomaalidu ay guro lahayd kheyraadkooda dabiiciga iyo fursadaha waaweyn ee ka dhex muuqanaya marka la eego shidaalka iyo macaadinta kale ee Soomaaliya. Waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu carabka ku dhuftay in uu socdo qorshe weyn oo la xiriira in dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay ka baaraan degaan kana fakiraan shirkadaha sifeynaya shidaalka, walow Turkigu uu doonayo in qandaraaskaas si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga dusha u saarto, maadaama uu jiro heshiis iyo cilaaqaad weyn oo ka dhexeeya Muqdisho iyo Ankara. Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la xaqiijiyay in marka la gaaro waqtigan la soo saarayo shidaalka Soomaaliya, marka la shaacinayo natiijada ugu dambeysa in uu safar u yahay dhanka iyo Soomaaliya, taasoo ka dhigan in Turkiga madaxweynahooda waxyaabaha u soo baxayo aanay ahayn waxyaabo fudud ama la dhayalsan karo marka la eego safarkiisa ballaaran ee Muqdisho, iyadoona dhanka dowladda Turkigu ay sheegtay inay sare u qaaday adkeynta amniga maraakiibta ka shaqeynaysa soo saarka iyo sahminta cusub ee dhanka shidaalka badda Soomaaliya ku jira, maadaama ay jiraan wadamo fara badan oo cadow ku ah dhanka Soomaaliya iyo Turkiga, kuwaas oo doonaya in aanay la soo saarin kheyraadka dabiiciga. Waxaana wadamadaas muddaba ay ka baaraan degayeen inay Soomaaliya baahida ama xaaladaha adag ay ku sii jirto.
wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordhaa baahinteena tad xigta warbaahinta xuraansi ku daawo.